عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada asxaabteeda quruxda badan meel walba adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan. Ramadaan kariim, ramadaanka qariib waaye, insha allah khayr allah noogu dhameeyo. soo dhowaada janaalku waa janaalkiina, please hadaan ugu cusubta subscribe noo saar, like iyo commentiga iyo shareta, waxba nala dhaafin insha allahu tacaala. maanta waxaa idin wadaa cabitaanka aan jeclahay marmarka qaarkood inaan ku saxuurto ama aan ku afuro. maasha allah energy ku siinaya, waxaan ku dhahay fitamiinaadka uu leeyahay ma laga sheekeyn karo. maasha allah waxa ku dhahay wax badan uu ku siinaya, waana ka faa'iidi doontiin insha allahu tacaala. adinkana waxaa rajeynaya inaad tijaabisiin. cunto dhan uma baahnid kaleeto markaa cabtid ama kaleetod aad dhamisid. maasha allah waxa ku dhahay bakteeriyaas ka badan. hadarta waxaan ku darsanaya marmalaatada timirta ee dusha kore, waa qurxin oo kaliya, wax weyn ma ahan. marmalaatada timirta ee hadda haystid wax walba uga maarmeysaa, sida jukuleedkii waxyaabaha aad ku qurxsan jirtay ama aad ku macaaneysan jirtay. iyadana maasha allah aaday u fiican tahay, waayo wax oo faad kuma saareyso, waa fitamiin oo kaliya. wax sokor laguma daro markii la sameynayo. marmalaatooyinka kale tad kale waa ognahna waxaa lagu daraa waxyaabo badan. jukuleedkana waa uga maarmeysaa. ani saas ku jeclahay marka daan waxyaabo badan oo iyada aan ku qurxinaa idin soo galiyay karaal noqda, maadaama aan aad u interest gareysas darteeda idin la wadaagaya. meeshan waxaan ku haystaa loos, waa ujeedina u maleynayaa waa looska caadiga ah. wuu dhanaan yahay looska markii saan loo soo gadaayo, uu bacaysan yahay, laakiin waa dhaqi doonaa insha allah. iyo meeshan waxaan ku haystaa timir. maasha allah timirta faa'iidooyinkeeda kale waa ognahnay. iyo moosaan ku haystaa, wax kale ma haysto insha allahu tacaala. looska waa kana waa soo dhaqay. loos koleeto waa ogtahay energy badan oo ku siinaya maasha allah. waa dharkiisa ay ku dhig markaa laba xabo loos xitaa cuntid kale isagoo qaleel ah markaa cuntid waa la og yahay. fitamiinaadkiisana inta ma kusoo koobi kara. timirtana sidoo kale tood marka in timirta lagu dhargaayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam aan nagala dardaarmaybo. marka aan ku wada salina nabigeena, maadaama bil barakeysan ay tahay, mar walbana ay wanaagsan tahay in lagu saliyo insha allahu tacaala. hadirtaa mooska soo fiiqday, waxaa ku darsanaa 3 xabo dhan ma ku darsan doono, 2 xabaan ku darsan doona hadduu ilaahay awood leh ka raali noqdo. marka waa kasaa 2 xabo mooska soo fiiqay waa ku soo ridooya. maasha allah wax weyn ma ahan, aad iyo aad u fudud yahay cabitaanka. looska aan soo dhaqayaan ku soo shubaya, kabacdina timirta lafahana waa ka bixinaya. qaybta koreetood oo madaxa korna waan ka jaraya, waa madaxa korna waxay leedahay kale waa wada naqaana geed kore leedahay oo adag wax yar. waan ka soo fujinaya, lafahana waan ka bixinaya, kadibna waan ku soo ridaya, kadibna waan shiidanayna insha allahu tacaala. maasha allah waxaan ku dhahay cabitaankan kule faa'iidooyinkiisa halkan kuma soo koobi karo, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aad kale tijaabisiin oo faa'iidooyinkiisana ay ila soo wadaagtiin hadduu allah awood leh ka raali noqdo. kule ma ahan oo kaliya in la cabo ramadaanka, maadaama ramadaanka oo energy badan loo baahan yahay, laakiin looska wuxuu leeyahay sida la og yahay faaduu leeyahay. hadda faad nacaysid oo artidiyada inaad sameysid ama iscaateen ama dhimista jirka, loosku waa iska dhaafi kartaa ama waa iska yareyn kartaa. laakiin maadaama ay ramadaan tahay, cid uu faad koraayo maba jirto, inkastoo in la dadaalna ay fiican tahay, waxyaabaha qaarkood laga taxadaro. marka anisasaan looska ugu badsaday inaan energy badan ka helo. maxaa dhahay maadaama maamooyin leeyahay, habeenkii la dhafraayo, maalintii iyo dhan la sooman yahay, howsha guriga ay ku sugayso, howsha guriga maasha allah iska badan tahay, waxaa loo baahan yahay marka wax energy ku siiyo oo maalintii oo kaleeto dib oo u cuntid, macnaha jirkaaga oo u cuno consume dhahaan afkan qalaad, laakiin af Soomaali macnaha aad isticmaashid energy, aad isticmaashid oo ku siinaya looska. timirtana kaleeto waa ogtihiin faa'iidooyinka ay leedahay, inay dhereg leedahay, inay maasha allah energy leedahay, fitamiinaadka ka dhiman qaarkood inay ku siinayso. mooskana kale Soomaaliyan nahnay waa iska jecelnahay, moos waxaan lagu darimaba noo dhadhamayaanbo. hadda waxaan kusoo darsanayaa caano booro. waa ku darsan kartaa caanaha kaleetood oo qasan, laakiin annaga bishaan ramadaan caano booro leh isticmaaloona ma jirto. marka ay caana markaas istida ku darsan kartaa. kadibna waxaan kusoo darayaa biyo yar aan ku shiidi doono insha allah. ma rabo inuu biyo zaa'id iga noqdo, waxaan rabaa wax yar inuu ii adkaado, marka saas darteedana biyaha uga badinaynin. haddaa biyo zaa'id ka dhigtid oo baraf aad kusii darteed wuu sii biyoobayaa, kadibna wuxuu kaa noqonayaa energy-ga tirada badnaa aad ka rabta ma ka helaysid. cunto ahaan inaan cabaan rabaa ani, cabitaan iyo cunto labadaba inuu ii noqdo. marka adinkana haddaad doontiin biyo waa ka dhigan kartiin,
waa adkeysan kartiin saa jeceshiin insha allahu tacaala. laakiin baroobeya insha allah markaa soomeysiin oo kaletood inaa cabtiin. waa kana sidan quruxda badan oo noogu soo baxay. videoga ma idinku sii dheereynayay, waa soo gaabinayaa, sawiraa kasoo qaaday waaye. quruxdaas noogu soo baxay macaanka maasha allah. marka koona waa arkayseen videoga qaandadaas ugu wareejinaa inuu adag yahay wax yar waa dareemayseen. marka asxaabta waxaa idin leentaa videogan video lamida dib uga kulmi doono. waa Maria Cooking Channel oo idin lee soo dhawaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.